xildhibaanaan nahay oo soo shaqeeyay oo dalka muddo ka shaqeynayay guddigan iyo guddoonku intaan ajandaha soo qorin inay arkaan yahay inay yiraahdaan anagu ma diyaarsanin raali ha nalaga ahaado haddii guddiga iyo marka de baarlamaanka de horta xeeroosaadka in la fahmaa la rabaa xeeroosaadka waxa way anaga iyo guddoonka waxana kala xakameynaayo anaga iyo guddiyada aan shaqada u dirsanay waxana kala xakameynaayo qaabka aan u dhaqmayno saa isu ixtiraamayno ixtiraam xumatii ugu weyneeda aniga maanta aan baarlamaankan ka dareemaya baarlamaan inta uu codeeyay ajandahan aan galno aan shaqeyno oo soo kalahay haddana la leeyahay ma shaqeynaysaan hala kala tago waa ayaan daro oo haddana inta guddoomiye ku-xigeenkeenni kood soo istaago uu intii joogtay eedeynayo uu leeyahay ma la imaanayo kan maliya guddoomiye shaqadiinni way idinkay ahayd ciddaan imaanin ah xafiiskiina uga qabsataan marka idan golaha nala joogin shaqada aan qabanaysaan oo idinka rabo waxa waaye wixii halkan ka fuli waayay inaad ka shaqaysaan ma ahan inaa anagii nimid inaad noo qudbaysaan oo meediyaha shacabka wax qaldan loo sheego oo la yidhaahdo xildhibaanadu waa kan sax ma ahan shacabka Soomaaliyeed qaladana laga fahamsiinaa idinkii haddana oo shaqada lahaa oo qaladkiinni inaa annaga haddana nagu eedaysaan sax ma aha anigu waxaan qabaa xeeroosaadkan in laga doodo aan laga kala tegin shan haddaan ku harno ajandahan waa la ansixiyay hajabinina idinka guddoonka ha la wado ha laga doodo xeeroosaadku waa yaala qodobadan ha laga doodo guddiga noot ha qaataan waxaan u diyaarsanayn ayaga yaqaan berigi dambe iyo maalinka dambe ha la yimaadaan laakiin sharci kale iyo wax kale kama doodi karno ilaa xeeroosaadkan meel la saaro waayo xeeroosaadkan maba naqaanaba si wax walba waxaan rabtaana noola soo kala haysaan guddiyadan joogtada oo meelay awood ku leeyihiin aan aragna la leeyahay xeeroosaadka ayaga lagala tashtay waxbay ka bedeleen waxbay saxeen awoodda ayaa siiyey meeshaan waxaa waayo xerogeelay noqotay ma ahan meel baarlamaan ma aha wixii baarlamaankan kala xakameyn lahaana xeeroosaadkan waaye xeeroosaadkan aan ka shaqayno guddoomiye aan ka shaqayno maantana shaqadiisa ayaan la joojinna ha la wado anigu waxaan kale kusoo jeedin lahaa kaas waay haddii kale idinkaa isdulmaaya annagaana dulmaysaan shacabka Soomaaliyeedna maalin walba war aan sax ahayn oo beenaha loo gudbinaya ama xildhibaan halkaa istaago ha ka gudbiyo ama idinka guddoonka aad ka gudbisaan saxna maaha wasalaamu calaykum xeeroosaadka laftirkiisii hortanada lagu jabiyo oo inta la yiraahdo u codeeya ajandaha baarlamaanka intaan u codeyno haddana la yiraahdo wixii hadda u codeysaan haddana waxba kama jiraan dad waaweyn oo xildhibaanaan nahay oo soo shaqeeyay oo dalka muddo ka shaqeynayay guddigan iyo guddoonku intaan ajandaha soo qorin inay arkaan yahay inay yiraahdaan anagu ma diyaarsanin raali ha nalaga ahaado haddii guddiga iyo marka de baarlamaanka de horta xeeroosaadka in la fahmaa la rabaa xeeroosaadka waxa way anaga iyo guddoonka waxana kala xakameynaayo anaga iyo guddiyada aan shaqada u dirsanay waxana kala xakameynaayo qaabka aan u dhaqmayno saa isu ixtiraamayno ixtiraam xumatii ugu weyneeda aniga maanta aan baarlamaankan ka dareemaya baarlamaan inta uu codeeyay ajandahan aan galno aan shaqeyno oo soo kalahay haddana la leeyahay ma shaqeynaysaan hala kala tago waa ayaan daro oo haddana inta guddoomiye ku-xigeenkeenni kood soo istaago uu intii joogtay eedeynayo uu leeyahay ma la imaanayo kan maliya guddoomiye shaqadiinni way idinkay ahayd ciddaan imaanin ah xafiiskiina uga qabsataan marka idan golaha nala joogin shaqada aan qabanaysaan oo idinka rabo waxa waaye wixii halkan ka fuli waayay inaad ka shaqaysaan ma ahan inaa anagii nimid inaad noo qudbaysaan oo meediyaha shacabka wax qaldan loo sheego oo la yiraahdo xildhibaanadu waa kan sax ma ahan shacabka Soomaaliyeed qaladana laga fahamsiinaa idinkii haddana oo shaqada lahaa oo qaladkiinni inaa annaga haddana nagu eedaysaan sax ma aha anigu waxaan qabaa xeeroosaadkan in laga doodo aan laga kala tegin shan haddaan ku harno ajandahan waa la ansixiyay hajabinina idinka guddoonka ha la wado ha laga doodo xeeroosaadku waa yaala qodobadan ha laga doodo guddiga noot ha qaataan waxaan u diyaarsanayn ayaga yaqaan berigi dambe iyo maalinka dambe ha la yimaadaan laakiin sharci kale iyo wax kale kama doodi karno ilaa xeeroosaadkan meel la saaro waayo xeeroosaadkan maba naqaanaba si wax walba waxaan rabtaana noola soo kala haysaan guddiyadan joogtada oo meelay awood ku leeyihiin aan aragna la leeyahay xeeroosaadka ayaga lagala tashtay waxbay ka bedeleen waxbay saxeen awoodda ayaa siiyey meeshaan waxaa waayo xerogeelay noqotay ma ahan meel baarlamaan ma aha wixii baarlamaankan kala xakameyn lahaana xeeroosaadkan waaye xeeroosaadkan aan ka shaqayno guddoomiye aan ka shaqayno maantana shaqadiisa ayaan la joojinna ha la wado anigu waxaan kale kusoo jeedin lahaa kaas waay haddii kale idinkaa isdulmaaya annagaana dulmaysaan shacabka Soomaaliyeedna maalin walba war aan sax ahayn oo beenaha loo gudbinaya ama xildhibaan halkaa istaago ha ka gudbiyo
ama idinka guddoonka aad ka gudbisaan saxna maaha. Wassalaamu calaykum. Xeeroosaadkii laftirkiisii hortanada lagu jabiyo oo inta la yiraahdo u codeeya ajandaha baarlamaanka intaan u codeyno haddana la yiraahdo wixii hadda u codeysan haddana waxba kama jiraan. dad waaweyn oo xildhibaanaan nahay oo soo shaqeeyay oo dalka muddo ka shaqeynayay guddigan iyo guddoonku intaan ajandaha soo qorin inay arkaan yahay inay yiraahdaan anagu ma diyaarsanin raali ha nalaga ahaado haddii guddiga iyo marka de baarlamaanka de horta xeeroosaadka in la fahmaa la rabaa. xeeroosaadka waxa way anaga iyo guddoonka waxna kala xakameynaayo anaga iyo guddiyada aan shaqada u dirsanay waxna kala xakameynaayo qaabka aan u dhaqmayno saa isu ixtiraamayno احترام حمتي ugu weyneeda aniga maanta aan baarlamaanka ka dareemaya baarlamaan inta uu codeeyay ajandahan aan galno aan shaqeyno oo soo kalahay haddana la leeyahay ma shaqeynaysan hala kala tago waa ayaan daro oo haddana inta gudoomiye ku xigeenkii kood soo istaago oo intii joogtay eedeynayo uu leeyahay ma la imaanay kan maliya gudoomiye shaqadiini way idinkay ahayd cidaan imaanin xafiiskiina uga qabsataan marka idan golaha nala joogin shaqada aan qabanaysaan oo idin ka rabo waxa way wixii halkan ka fuli way inaad ka shaqeysaan ma ahan ina anagii nimid inaad noo qudbaysaan oo meediya shacabka wax qaldan loo sheego oo la yiraahdo xildhibaanadu waa kan sax ma ahan shacabka Soomaaliyeed qaladan laga fahamsiinaa idinkii haddana oo shaqada lahaa oo qaladkiina ina anaga haddana nagu eedeysaan sax ma aha aniga waxaan qabaa xeeroosaadkan in laga doodo aan laga kala tagin shan haddaan ku harno ajandaha waa la ansixiyaa jabinina idinka guddoonka hala wado hala laga doodo xeeroosaadki waa yaala qodobadan hala laga doodo guddiga noota qaataan waxaan u diyaarsanayn ayaga yaqaan berigi dambe iyo maalinka dambe hala yimaadaan laakiin sharci kale iyo wax kale kama doodi karno ilaa xeeroosaadkan meel la saaro way xeeroosaadkan maba naqaanaba wax walba waxa rabtaan noola soo kala heysaan guddiyadan joogtada oo meelay awood ku leeyihiin aan aragna la leeyahay xeeroosaadka ayaga laga tashtay waxbay ka bedeleen waxbay saxeen awood ayaasi meeshan waxa waayo xeregeelay noqotay ma ahan meel baarlamaan ma aha wixii baarlamaanka kala xakameyn lahaana xeeroosaadkan waaye xeeroosaadkan aan ka shaqeyn gudoomiye